الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام وبعد marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Carmo gudoonka jaamacadda ganacsatada aqoon-yahanka gabdhaha bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay madashan lagu daafurayo kambaska ama xarunta jaamacadda City Court magaalada Carmo salaantaas kadib warkii jaamacadda furitaankeeda iyo kulliyadaha ay hayso waxa dhameeyay gudoomiyaha jaamacadda waxaan rabaa aniga inaan laba kelmadood warkayga ku soo koobo kelmadda koowaad waxa ay tahay jaamacadda Carmo in laga furaayay maxay uga dhigan tahay ama ahmiyadda ay u leedahay Carmo iyo deegaamada hoostaga inay jaamacad helaan ahmiyadda ay u leedahay qodobka haddaan ku horeeyo magaalada Carmo saa la socotaan waa magaalo موقع استراتيجي ku taala geographically meesha ay ku taalo waxay u dhaxaysaa ilaa 3 gobol waxa ay center u tahay magaalada ganacsiga marka laga hadlayo Puntland waa magaalada ugu dhow marka la fiiriyo gobolka Sanaag iyo gobolka Bari na waa magaalada isku xirta iyo gobolka Karkaar mowqiceeda istaraatiijiga waxay uga faa'iideysanaysaa inay soo jiidato arday aad u fara badan iyo dad badan oo xirfadlayaal ah haddii ay jaamacad hesho kadibna arrintaas ay wax weyn ka tarto kobaca dhaqaalaha magaalada maadaama dad fara badan oo xirfad doonaya ay imaanayaan waxay kaloo kor u qaadaysaa sumcadda magaalada Carmo waxyaalihii ka dhinaa waxaa ka mid ahaa jaamacad wax badan oo kaabayaasha bulshada ah way lahayd magaaladu sida cusbitaalada iyo xarumaha kaleeto oo public ah helitaanka jaamacadda City Court waxay kor u qaadaysaa sidoo kaleeto sumcadda magaalada waxay kor u qaadaysaa tirada dadka magaalada ku nool iyo ku nagaanshahooda dadku inay joogaan waxay kaloo xoojinaysaa in dad badan oo xirfadley ah ay deegaanka iyo dadka ka soo baxaan waxay kaloo niyadda u dhisaysaa ama ay niyayiro ku abuuraysaa arday kasta oo dugsiyada sare ama dhexe ama hoose ee deegaamada Carmo iyo kuwa hoostaga dhigan jiray oo rajo ka qabay maalin uu isagoo deegaankiisa iyo dadkiisa la nool inuu jaamacaddiisa iyo waxbarashadiisa u dhamaystirto bay rajadooda iyo himiladooda ay hagaajinaysaa waxay kaloo baajinaysaa dhaqaale fara badan oo ka bixi jiray dadka deegaamada Carmo ka soo jeeda iyagoo aan qaybsami karin oo laga yaabo marar badan inay ku qasbi jirtay inay laba reer noqdaan oo laba kharash ka baxaan maadaama ardada qayb ka mid ay jaamacad u baahdaan meelaha ugu dhowdhown ay ahaayeen Garowe iyo Boosaaso dhaqaalaha iyo kharashkaas faraha badan oo qoysaska ka bixi jirana waxa uu baaqanaya dadka deegaanka ah waana fursad u soo korortay bulshada waxaan aaminsanahay marka fursaddaas iyo sumcaddaas iyo karaamadaas ay heleen dadka deegaanka Carmo waxaan aaminsanahay inay tahay fursad mudan in laga faa'iideysto oo ay dadka deegaanku la rabo inay sameeyaan tadxiyo ama wax la yiraahdo sacrifice oo sanadada hore lagu dhiirado in ardada loo sheego tacliinta ay ka helayeen gobolada kale to tacliin la mid ah inay deegaamada Carmo ka helayaan oo loo sheego waalidiintu ay u sheegaan meesha hadda laga xaga saarayo ardada in loo sheego in jaamacad Carmo la keenay ee la joogo arrintaas waxaan aaminsanahay inay fursad u tahay waxay kaloo jaamacaddu u ballan qaadaysaa in dhaqaalaha jaamacadda lagu dhiganayo sanadada hore inay uga jabnaan doonaan dhaqaalihii magaalooyinka lagu dhiganayo tayada waxbarashada iyo adeegga ay helayaanna inuu ka sarreeyo ma ahaane kuwii magaalooyinka ka helayeen ma ahaane ma dhacayso inuu ka hooseeyo waxaan marka ku boorinayaa dadka deegaanka reer Carmo inay fursadda ka faa'iideystaan oo jaamacaddu maadaama ay tahay jaamacad cusub oo la furaayo fursaddaas marka horeeto ay ku dhiiradaan oo ay jaamacadda soo dhaweeyaan tan xagga qodobkayga labaad waxa weeye jaamacadda yaa arday u noqon kara jaamacadda arday waxa u noqon kara sida la sheegay ilaa 1500 oo arday oo deegaamada Carmo dhigta baa waxay u yihiin ardada la firanayo inay yimaadaan iyaga kowka ah dugsiga sareeto oo dugsiyada sare ku yaala Carmo iyo deegaamada hoostaga iyo degmooyinka kaleeto oo geographically ee magaalada centerka u tahay baa waxay u tahay ardada filanaya jaamacadda inay ku soo biiraan dadkaas marka sanad qaar baa dugsi sare ka baxa koow horta waxa laga rabaa dadka dugsiyada sare ka baxay ee deegaamada Carmo gaar ahaan Carmo sanadka waxa la rabaa say u dhan yihiin inay horta jaamacadda galaan oo aysan meel kale aadin waa qodobka labaad oo kale waxa weeye waxbarashadu da' ma leh oo dadku waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin kaliya qofkii dugsi sare ka baxay oo hadda jaamacad dugsi sare soo dhameeyay kaliya bay waajib ku tahay inuu wax barto waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka Carmo ku sugan
iyo degaamadeeda ee iyagu waxbarashada ama jaamacad kale horey u dhameeyey bajular haystay ama iyagu xirfad gaamurtay leh laakiin aqoon akaademiga aan lahayn ama laga yaabo inay dad waaweyn yihiin oo 40 iyo 50 sano jira laakiin aaminsan inaan iyagu waxbarashada loogu talagalin iyagana waxaan ku dhiirigelinayaa waxbarashadu ma dhamaato qof allaale qof kastoo shuruudaha jaamacadda buuxiya oo waxbarashadii beyska ahayd leh jaamacaddu waa u furan tahay iyaga laftigooda waxaa rabaa dadka shaqaalaha dowladda gudoomiyada hadda nala jooga waxaa dowladda hoose ka shaqeeya ugu yaraan dad gaaraya 30 qof gudoomiyaha waxaa laga rabaa ugu yaraan 15 qof oo ka mid ah inay jaamacadda galaan uu sheego oo ardada jaamacaddu ay noqdaan cusbitaalada dadka ka shaqeeya waxaa rabaa inay digri labaad qaataan oo jaamacadda yimaadaan dadka kale oo xarumaha private-ka ay business-ka ka shaqeeya ama golis ha noqoto ama somtel ha noqoto ama shirkadaha kale oo horseed ka mid ah ha noqoto iyagana waxaan u soo jeedinaynaa inay jaamacadda galaan sanadka koowaad waxaan rabnaa ardada jaamacaddu inaysan noqon kaliya qof dugsiga ka baxay kaliya la eriyoonayo laakiin dadka kale ee shuruudaha buuxiyey ee degmada ku sugani waxaa la rabaa inay jaamacadda ku soo biiraan maadaama jaamacaddu cusub tahana ay iyagu qaataanin wax la yiraahdo doorkooda hogaamineed maadaama jaamacaddii loo keenay annagu aan u keennay idinkana waxaa laydinka fadhiyaa inaad doorkiina qaadataan oo jaamacadda ku biirtaan jaamacaddana mas-uuliyaddeedu waxa waaye inay waxbarasho tayo leh macallimiin iyo manaahij iyo qalab loogu talagalay in wax lagu baran karo inay keento oo diyaar ah idinkana waxaa laydinka baahan yahay qof kasta oo carmo ku sugan iyo degaamadeeda ee buuxiyey shuruudaha jaamacadda asaasiga ahi inuu jaamacadda ku soo biiro waxbarashaduna sidada bannaanba wax dhammaata ma aha rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi udlubu alcilma min almahdi ila allaxdi qofka muslimka markuu la hadlaayey yani waxa la yidhi cilmiga dalbashadiisu qofka marinta uu dhasho ilaa maalinta iilka laga dhigaayo waxa laga rabaa inuu barto hadalkaas marka waxaan ka dareemaynaa inuu yahay waajib in qofku cilmigiisa iyo aqoontiisa uu kor u qaado marka qofku aqoontiisa kor u qaado waxa la yidhahdaa qoys haddaa rabto inaad faqri ka saarto waxyaalaha ugu horreeya qoys faqri lagaga saaro waxa la yidhi waa tacliin reer dhaqaalahooda hooseeyo sifada keliya oo dhaqaalahooda kor loogu qaadi karaa waa aqoon degaan iyo bulsho la rabo dhaqaalahooda iyo noloshooda in wax laga bedelona waxa kor loogu qaadi karaa waa aqoon qof si shakhsiya wuxuu naftiisa ku horumarin karaa waa aqoon degaan dal iyo dowladna waxa lagu horumarin karaa korna loogu qaadi karaa waa aqoon aqoontana asaas waxa u ah xarumaha tacliinta sare ee jaamacaduhu ka mid yihiin oo ah meelaha soo saara dadka haldoorka ah oo dadka noloshooda wax ka bedela waxaan rabaa inaan warkayga kusoo gabagabeeyo inta hoolkan joogtahay inay fariintan qaadaan qof kasta oo deegaanka carmo ku sugan oo aqoontiisa xataa ay horay bajular iyo master u gaarsiisanayd waxaa laga rabaa inuu jaamacadda kuliyadaha intuu fiiriyo kuliyad allaale kuliyaddii anfacaysa inuu kusoo biiro si ay jaamacaddii deegaankiina ugu nagaato bulshada qaybaheeda kala duwanna ay ugu dhiiradaan oo iyagu u noqdaan waa maxay qudwo ay ku dayan karaan marka guddoomiyaha degmada uu dhaho anigaa digri iska diiwaangeliyey jaamacadda ka mid a oo xildhibaanada 30 gaaraya ay dhahaan waa isdiiwaan gelinay qoys cararaya iyo cilmo boosaaso u cararaya ma jirayso